فايروس إلهي نوما كانوا لكن أدوك ضدك يكون ولا مالك استاذ أدوك ده على الكيسة ورور بوقا أموري يا عبسي تا عالم كانوا كلام ده عدو ولا تالكيد هي تلذيذ هي اسمها قلكيد أي كجد يرجعوا إنا قلنا تا أدوك كانوا كلام ده إلهي مهدي ما أنت دلكينا وحضره كتير مثل ساك شلي آيات تجابت dadka wixii la baaray tiradooda ardii sheegi doona muddo ilaa maalintii aynu sameynay taxadirka ee airportka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waa weyn dalkeena meelo badan baa laga soo galaa xuduud weyn bay leedahay wado wali way furantay laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaas inay cudurka qabto oo adduunka oo dhan u istaandara marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka wadada soo maray wadooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa wixii meel kale ka soo galay ee lagu inuu soo gala Allah ilaahay marka ka magan gelinaa inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoonahay gudaheena anaga waxba ka dhicin laa imka meel laba ruuc caafimaadba shalay maqribku wuxuu noo dhacay tukaraq waxa la baaray oo soo maray 109 qof dhammaan way caafimaad qabeen wax laga shaqeeyo lama arag yube waxa la baaray 10 qof oo soo maray controlkii ay yaaleen baaristu way caafimaad qabeen dhahar 9 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 9 qof wajaale 540 qof baa soo galay dhammaantood caafimaad qabeen wax laga shaqeeyo lama arag berbera waxa ka soo galay 19 qof oo u badan kuruuga maraakiibta baashar kama soo galin waa caafimaad qabeen markii la baaray lawi cado 138 qof baasan jara wax laga shaqeeyo laguma arag egaal airport waxa ka soo galay 262 qof wax laga shaqeeyo laguma arag tiradaas shalay galabtii waago gobolku noogu dhacay ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodii waa la soo tabinayaa wali wax shaki u kaysamay taxadirka waxaanu soo oranahay in isugu xidhno warka ilaa goobta ilaa madaxtooyada ilaa wasaaradda dalanku inuu soo dhawaaday marka cad sabiin hore lagu sheegay dalkeenu isu furan yahay cabsiyo qabnaa inuu iska wada eegana arinta marka ilaahay mahadi waa noqdo waxaan soo qabnaa warwar adduunka oo dhan qabo gobolkeena ka soo dhawaaday doorto waxaan magacaabay 5 wasiir oo hogaaminaya arinta oo shaqo qaran 5 wasiir oo kala asaagtiin oo hogaaminayso caafimaadku dakhliga waxbarashada awqaafta iyo warfaafinta hadda waxa loo baahan yahay kamaaran waagi nolosha iyo caafimaadka saynu ilaalinay in la iswaafajiyo waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka laga bilaabo imka maalin walba guddigan waxa soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado cidii fulmay oo ku saabsan caafimaadka inta waxaan dhaafay 2 qolo ayaan fariintaa u soo mareen maanta culimadu warka ay direen waa in madooba qolna waa saxaafadda maanta dalku ciidanka quru haysto cudurka wax ka qaban kara ee dagaalka geli kara waa saxaafadda iyo isgaarsiintu